سيجيسي maxaa soo madhay baan ku yiri dugsi dhexe ilaa heer jaamacada gacanteeda uu heliyahay buu si wanaagsan waxaan la joognaa Dr. Jaamac Cabdullaahi Ilaala Jecel oo ah khabiir ahna dhakhtar wax ku daaweeya daawada dabiiciga ah gaar ahaan qaabilsan jugta culus iyo istimtaaca sariirta saan wuxuu uga ogaano Jaamac waxa wax ku daweeyo cidda uu daweeyay doctore soo dhawow wadhowahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bulshada Soomaaliyeed oo meel kasto ay adduunka ka joogto dacaladiisa waxaan ku soo dhaweynayaa Daaru Raxma oo ugu bishaareynaya daawooyin cusub oo aan daawooyinka hore ahayn inaan soo saaray hadda oo Ilaahay u guuliyay kiisas badan oo hor leh aan halka ka soo gudbin doono marka laga yimaado inaad daawo dhireed wax ku daweysid aqoonta inta gaarsiisan tahay xagee wax ku soo baratay bal Jaamac Ilaala Jecel ka yahay shacabka la wadaag ما شاء الله أنا دبي ما هي مجرب أنا هاي علمي قالوا وحكومي العيب كذا aniga labadii lagood xoolaha ilaahna way u daawayay goobta adeegana waa ku soo noqday ka bacdina halkaas aan waxaan go'aansaday inaan si aan ugu gudbiyo bulshada inaan ka barto ninkii dhirta ay baray igu daawayay oo dhakhtarka ii ahaa dhirta process dheer baan soo maray muddo soconayay ilaahna way ugu guuleeyay waxaad ka dhawaajisay inaad tahay mujarrab bal dadka si fiican u fahansi oo waxa adiga jabka kugu dhacay hadii aad wax ka sheegi kartid oo ay suurtagal tahayna u bayaani ma sha Allah oo sheegi karaayo hada jab ninkii soo maray baa laga wareystaa baa la yiri nin raga horta oo su'aal ku timaada waxa ugu daran labadiisa lagood dhexdooda qofkaas dareemi karaa yani anu markaan maxaa iska ka bedelay marka ما شاء الله واحد يسكت بدل دوينها مرخاتك ورق بدروا ضد بدروا عرفت إذا الله صعد جراء ما شاء الله الحمد لله جوبت هذيك قصيفة عم بنقضي وش غينيا عرفت إذا الله هو أسطوري ضد بدروا إلى سو حريريو كيس كيو كلا كل عينا إلهي وجولي ويوتيوب كأكو يعني إنسان كوار كذا ما دام تخصصك ويهي أما وقت بدنا كوب حسي إن ترجع كعوسد ضعيفنimada kaga timaada qaabka sariirta ama aad adigu ku gaartahay inaad raga ka caawisid jugta culus maxaad nooga sheegi kartaa waxyaalaha aad ku daweysid ما شاء الله وحيالها ku daaway waxa ka mid ah waa dhir weeye jugta culus horta sideedaba markaan leeyahay man cajasa aan istimtaac faliyati shajaratan inda jaamac bisura markaan leeyahay macna badan bay xambaarsantahay raga kaliya ma haweenka laftigooda ba mar waxa ku noqonaya dib ku noqonaya oo ay dibsanaysa in maartay hada odoga aminka yimaado waa bilaadan kula mid ah ayaga laftigooda waxaan soo saarnay daawooyin difaacooda dhisaya oo ay u baahanayso in xaajigooda u yimaado ma sha Allah rag inta badan waxay ka cawdaan biyo bax degdeg ah maxaad biyo bax degdeg ah dawo u haysaa أنا دكتور باناهي وان قرينيا dadka sirtiisa looma baahna inaan hebel saas u ahaa in raahdo hada example hadaan misaal ka siiyo wiilkii u dambeeyay hadda aan YouTube ka galiyo waxa soo wacday Islam Bank waxa iga soo wacday Hargeysa waxay tii wiil aan dhalay baan roosiyay $32,000 baa ku baxday afar bilood baan qubnaa reer caadi inuu noo dhisan yahay asbuucan baa waxa iswareystay gabadhii la soo guursaday gabadhaydii waxay u sheegtay sidii loo soo guursaday inay tahay oo halkaas wax shaqo ay soo wiilkaaga ka qaban wiilkii la soo hadalsi baan ku yiri wiilkii baa hameenkii soo wacay warba waran si wuxuu jiraan adeer markaan banaanka joogo caadi baan markaan meesha fariisto baalkiiba waa isdiibaya siigaysi maxaa soo madhay baan ku yiri dugsi dhexe ilaa heer jaamacada gacanteeda uu heliyahay buu waxaan ku yiri baalkaan 36 xidid baa soo gasha oo masiibo qaran 36 ka xidid meel buush loo kareem loo Ilaahay u sameeyay waa ushiisa ku qabtaa marka brush wax looga soo dhalinyarada heeska la yiraahdo gacanteeda hodanka isla garanay markay qaadaan deebaalkii waa dhimanaya oo waqtiga waxaan horta kula dilanaya waxaan kula talinayaa nimanka dhalinyarada inaysan isticmaalin gacantooda mid koobaad marka labaad waxaan u soo saaray hadda qofkii hore u soo isticmaalay daawooyin soo celinaya muruqi waan u soo saaray waa inay si toos ah ila soo xiriiraan nambradeeda YouTube-kayga marka wiilkii maxaa iska bedelay habeen baa hadda way soo wacaa 6 bilood baan u qoray daawada habeen baa way soo wacaa rajaayo aba dhawlay 12aad buu dhamaysanay bishii shanaad bay 12aad buu dhamaysanaya marba wuxuu leeyahay adeer xaaladaydu cirkaas ay maraysaa maadaama tiri ragga ayaan ka caawiya barnaamijkan ama xubinta ka dabacdo ama sirta ku fashilmee
soo inay isu balance garayso dadka ma aha maxaa dumarka waa haysaa ما شاء الله aad baad u baahsantahay kuwa hadda ka hor dee waataan bandhigay waxaan waa noole ilaahay isugu talagalay inay isku nafisaan oo isku nafaxaad isla helaan daawooyin isku dheelitirayaan soo saaray waxyaalaha hadda cusub aan soo saaray waxaan hadda soo saaray daawooyin cusub oo haweenka kuwa wajiga haaraha sameeya kuwa magaraysa dhacamadu hormoonada ku yiraadaan kuwaasoo daawooyin baan hadda u soo saaray cusub oo ay ka helayaan si degdeg ah meel kasta xarumahay ragga meel dhaxadka ah aana ku fashilmin sariirta kuna soo caban adiga dumarkuna ka awood badan yihiin maxaad ku talinaysaa maxay iga soo doonay nin caafimaad qaba aniga igu imaanaya ninkii laga adkaadaan xal u haya ninkii wax fiican haysta aniga saa joog marka laga yimaado taas dadka aan waxba ka aqoon hawlahan istimtaaca iyo jugta culus oo dhalinyarada ah ama hadda guursaday ama hadda rabeen inay guursadaan maxaa tala gudsiinaysaa tala guur waxaan siinayaa horta dee guurku waa laga maarmaan waa nolosha qofka aadamiga inay siigada dee wuxuu guurka uga habboon qofka hadduu siigaysto guur uma baahna ma ogta waana dee ummadii nabi maxamed waa in la tarbiyaa ma ogta guurku waa sunni qofku inuu guursada hadduu gacantiisa waa dambaabaya toobad celiyaan leh marka siigaysta gacanta hal badanna waa haya talooyin baan u hayaa muruqyadii damage u geystay dhisaya hadii la yiraahdo talooyin badan baan horta u hayaa dadka taladeedu ma dhamaan ka dhaho horta waxaan kula talinayaa nimanka dhalinyarada Soomaalida ah aniga gabdho way la soo xiriirayaan ma ogta waxaanu dee mubaasharad muhiim ah in qofku uu ogaado dee qofkii lamaanaysa inuu qancay in kale nimanka dhalinyarada ama nimanka Soomaalida horta waxaan kula talinayaa qofka martida u ahaa inuu ogaado inuu sooreeyo in kale aniga waxba la isoo qoraya ma ogta hebla waxay soo qoray hebel baa soo qoray midna ma oray laakiin wax bixin baa soo gaadha maadaama dhakhtar arrimaha ku takhasusaynahay cabasha waxaan marka nimanka Soomaalida kula talinayaa inay gabadha la socdaan waa martidiisii mid kale hal baan u sheegayaa nimanka Soomaalida gabadha haday tiraahdo abow aawa ku baahanahay inaysan caayin oo xanaaqin baan rabaa waayo waa nolol la mid ah dimuqraadiyad bay joogaan gabadhu xilliga hore ay ciilka la saxan jireen maaha gabadhu way ku baaqaysaa adeed baaqi garan weydina waa lagu dhufanayaa waa inaad u ahaataan diyaar nimanka Soomaalida oo gabdhaha adina afka u buurin adna nimankan u sheegaya insha Allah waxaan hadda kale ugu shaareeyaa dadka waagi hore waataan oo daawadeeda inta la wado isma taaban karo hadda niman xaaslayn daawadeeda ma isticmaali karo hore ka dhaqaaq weey daawadaadana waa isticmaalaysaa reerkaagana waa raraynaysaa ma jirtaa sir ah waxa dhalinyarada waxaan kula talinayaa dhalinyarada Soomaalida inay soo horta degdegin markay shaqada bilaabayaan inay degdegin oo arrimo badan oo ay ugu dambayso meesha halka ah meesha isla garanayno waa inay ugu dambaysaa waa inuu meel badan soo maraa waa inuu target ka dhigan ma garanaysaa meesha isla garanayno horta arrinta waa kula talinayaa degdeg baa dhalinyarada lagu ibtilay markii hore waa siigaysto baalku waa jilicsan yahay markii dambana gabadhii asagoon meel badan soo marin oo dhagihay fiirin oo indhihii fiirin oo baalashii fiirin buu ayar ma garanaysaa gaarsiinaya hadda gabadhii waa caroonaysaaba maxaa laga fiirinayaa indhaha dhiga waxa laga fiirinayaa inuu kacay organadii inay istaageen oo kale laga fiirinayaa waxaan aqoon baa ka sheekaysan hadda example oo kale gabadha hadda sunniyaha waa weyn leh 36 xidid bay 36 bay ka kacdaa 36 bay ka kacdaa qof ama siigaystay ama xanuunka galaha qabana 36 ma gaarsiin karo marka waxa la isticmaalayaa waa inuu isbeerkiisa isticmaala kaydkiisa waa inuu isticmaala دوا اسبرك اصبر ugu sheegay marka wax yar waxaad ka tilmaantaa dawooyinka aad ku daweysid jugta culus ma sha Allah dawooyin badan baan ilaahay ugu leeyahay hadda baalkan dekarku kale waa sibirarka naaskiisa oo kale sibirarku markuu buuxo gacan kuma taagna marka uu dhiman yahayna waa isku laamaya baalkan waxa bixiyo hormoono dabiici ilaahay siiyay xanuunkan galaha la yiraahdo markuu ku dhaco galo waa saddex galnuug iyo galabaran iyo galqanjir baa leeyahay mar labada xaniyood baa dheeraanaysa mar way kala dheeraanayaan mar xaniyihii xubintii taranku way yaraanaysaa oo ninka buufis baa ku dhaco wala isreeb yiraahdaa shahwada waxay noqonaysaa wax jilicsan oo biyo hadiiba soo baxaya mar waxa ka iman mayaan xanuunka la yiraahdo baabasiirku saddex nooc weeye mar wuxuu galaa dabada wareegeeda banaanka neero burburan baa toosanaysa marna wuxuu galaa walamadka afkiisa hoos oo qanjiro burburan bulay fartu gaadho qofka saarado dhinac bay uga timaada marna wuxuu galaa mindhicirka oo dabadan way cuntaa qof saarado kama timaado shaqeyn waayay hadda daawooyinka hadda cusub aan soo kordhay waxa ka mid ah nervaha iyo dhikarka
neerfaha lagu sheegay waa laba xidood isfuushay ama xidid dhacan ku hakaday waxay ilaahay sakhiray daawooyin qofkii dhaqaya oo xididkii waxa ku jira YouTube-kayga hadda markaad gashay Dr. Jaamac ilaala jecel galisid waxaad arkaysaa 3 sano nin kooma ku jiray isaga ka sheekeynaya 3 sano baan kooma ku jiray oo marba galaya koomo daawadeed markuu sabay ilaahay waa ku caafimaad waxa xagga taranka ii diiwaan gashan hadda garow kale hadda maalin dhow adeera 3 qof baa ii sheegtay hadda inta joogo garow oo nin walba uu naagta gabadhii warintay warba yeelata soo ilaahay filligiis ma haddii ogaan lahaayeen dadka hadda aqliga leh oo hadda oo kale dadka mas'uuliyiinta ah ilaa hadda example hadda madaxweynaha kale wuxuu ballan qaaday qof kasta oo Puntland wax ku soo kordhiya inuu abaalmarin siiyo marka hadda abaalmarinta waa sugaysaa haddii warkayga la gaarsiiyo waa inuu siinayo abaalmarin warkayga uu gaarayaan aqoon waxaan jeclaan lahaa qofkii arkay inuu gaarsiiyo intaan hadda 300 oo qof oo reer Puntland oo dumi lahayd baa ilaahay ugu badbaashay saarda haweenka waa laakiin hawsha qaabilsan hadda raadinaya hadda Allah waa inay ila soo xiriirtaa lagu de hadda baad goobkeeda waliba cadeynteeda aan hayo insha Allah islaax soo jeen baan hayaa awleera customerkiisa ama dadkii bukaanka ahaa ee ku caafimaaday dawo dhaqameedkiisa soo dhow waa dhow magaca Maxamed Cabdirasaaq Yuusuf Ramadaan Maxamed Yuusuf Cabdirasaaq Ramadaan maxaad ka cabanaysaa marka hore iyo gaas ma ka cabanayay adigu in muddo aan gaas ka cabanayay maalmaha dhakhtarka isaragnay daawo dhareed bisiye anigu hadda bil walbana dhakhtar taga oo aan gaas ka cabanayo daawadii markii aan qaatay isbuucii ugu horeeyay waxaan saga gartay marka ma sha Allah hada waa fiicnahay wax gaasana mari hadeer